مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدن أحمد محمد سيلانيو إنه قلها كسور جيدي خطوة صمدات في مدن مدحوين كسولو. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شركتونك برلمانكا حلبانات اللبادة قولا حزبية القرنكا متشرفتا واربعينتا كالدوان وحدكو السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدومية marka hore waxaa halkan mahadnaq ballaaran iyo hambalyo uga soo jeedinaya xildhibaanada labada gole ee qaran ee wakiilada iyo guurtida anagoo idinka mahadnaqaya wada shaqayntii qiimaha lahayd ee la dhex martay xukuumad ahaan sanadkii la soo dhaafay iyo muddadii xilka hayay taasoo laga dhahan karo dheelitirka bilgaha dowladnimo iyo xiriirka golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda. wada shaqayntaas oo haddii aynan jirin aan qaranka ku tallaabsadeen horumarka uu sameeyey. waxaa kaloo aan jecelahay inaan halkan mahadnaq uga soo jeediyo dadweynaha reer Soomaaliland ee geesiyaasha ah oo markasta ku hawlan sida ay qarankooda ugu horumari lahaayeen kuwaasoo si waddanadu ku dheehan tahay markasta u garab taagan xukuumaddooda. gudoomiye iyo mudanayaasha sharafta ah sida dastuurka qarankani uu waajibiyey inaan sanad kasta hor imaado fadhiga loo dhanyahay ee labada gole waxaad ii soo gudbin doonaa warbixin ballaaran oo aan kaga hadli doono wixii inooga qabsoomay qorshihii sanadeedkii ina dhaafay ee 2012. waxaa kaloo aan faahfaahin ka bixin doonaa qorshaha xukuumadda ee sanadka cusub ee 2013 iyo guud ahaan xaaladda guud ee dalka. doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo furitaanka ururada siyaasadda. gudoomiye iyo mudanayaasha sharafta leh waxay sanad ka hor markii aan madashan aynu fadhino ka ballan qaaday inaan dalkeena ka qaban doono doorashooyinkii golaha deegaanka oo aan la qaban muddo 10 sanadooda anigoo si fiican u fahamsanaa culayska siyaasadeed dhaqaale nabadgelyo iyo bulsho ee ay ahayd furitaanka ururada siyaasadda iyo qabashada doorashooyinka dowladaha hoose iyadoo aynu garan karno lagdaka u dhaxeeya nidaamka dimuqraadiga ah ee aynu qaadanay iyo kabeelnimo ee ummaddeena dhaqanka u ahaa muddo dheer iyadoo aynu wada ognahay tartanka u dhaxeeya qarannimada iyo qabyaaladda. waxaa mar kasta inoo muuqatay in qaranka Soomaaliland ay dantiisa ku jirto kobcinta geedi socodka dimuqraadiyadda iyo hirgelinta doorashooyin joogto ah oo dadweynuhu ku soo doortaan hoggaankooda kala duwan. anigoo tixgelinayay rabitaanka dadweynaha iyo ballantii aan ummadda u qaaday xilligii ololaha doorashooyinka madaxtinimada isla markaana si fiican u daristay uguna qanacnay taladii ay soo jeedeen 14 Juulaay 2011 guddidii aan u saaray kasoo tala bixinta in ururada la furo yeen kale iyadoo ay guddigii soo bandhigeen in ra'yigii bulshadu u batay in la furo ururada. waxaan markaas go'aansaday in ururada siyaasadda la furo muwaadin kasta oo han siyaasadeed lahaana uu fursad u helo inuu dadweynaha fikirkiisa u soo bandhigo oo cod weydiisto. marxaladda waxaan ku dhiiray in xisbigaygu la tartamo ururada cusub arrintan oo aan filayo in rag badan oo siyaasiyiin ay ku adkaan lahayd haddii ay joogaan halkayga. waxay xukuumaddu sugtay ammaanka goobihii codbixinta oo ay ka dhacaysay oo ka badnaa 1800 oo goobood si doorashadu u noqoto mid xor oo xalaal ah. iyadoo xukuumad ahaan nalaga sugayay dhaqaalaha doorashada ku baxaya 25% waxaan bixday 30% iyadoo weliba aan ururadii tartamayay gacan ka siinay gaadiidka muraaqibiinta ay ku qaadanayeen oo aan ku bixinay kharash ka badan 1 bilyan oo shilinka Soomaaliland. gudoomiye iyo mudanayaasha sharafta leh waxaan mamnuucnay in ololaha doorashada loo adeegsado hantida qaranka
sida gaadiidka dawladda iyadoo aanu shaqaalaha dawladda u diidnay inay sinaba uga qayb qaataan ololaha doorashada xukuumad ahaan waxaan uradii tartamayey fursad isku mida u siinay adeegsiga warbaahinta qaranka waxaa kaloo ay xukuumaddu si buuxda u ilaalisay una xaqdhowrtay ilaalinta madax bannaanida guddiga doorashooyinka qaranka si ay guddigaasi u gutaan waajibaadka qaran ee saaran howlahoodana ay u noqdaan qaar ay u madax bannaan yihiin oo aan cidina ku faragelin waxaa dalka si nabadgelyo ah uga qabsoomay doorashadii golayaasha deegaanka taasoo ay ku tartameen 7 xisbi iyo urur waxaana gabagabadii ku guulaystay 3 urur ee kulmiye wadani iyo ucid waxaa hadhay 4 urur iyo 1865 xildhibaan halkaasoo aad ka dareemi kartaan baaxadda hawsha doorashada aynu ka soo gudubnay Soomaaliland waxay halkan ku soo gaadhay siyaasi u tura iyo oday sabatalis ah waxaan jecelahay inaan hortiina uga soo jeediyo hambalyo bogaadin iyo ammaanba hogaamiyaashii ururada tartanka ku hadhay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose Xasan Maxamed Cali Gaafadhi iyo Ismaaciil Aadan Cismaan oo aqbalay natiijadii si sharaf leh kaga tagay tabashooyinkoodii miisaaniyadda iyo kororka dakhliga qaranka gudoomiye iyo mudanayaasha sharafta leh maanta iyo maalintii aan xilka la wareegay waxaan dadaal aad u ballaaran ugu jirnay sidii dhaqaalaha dalka aan u kobcin lahayn korna ugu qaadi lahayn dakhligiisa sida cashuuraha loo habayn lahaa hoosna loogu dhigi lahaa tacriifada meelaha taabanaya nolosha bulshada iyo sidii musuqmaasuqa iyo lunsiga hantida qaranka loola dagaalami lahaa si looga midho dhaliyana waxaanu samaynay tababarka iyo tayeynta shaqaalaha dawladda wacyigelinta bulshada iyo bixinta cashuuraha ku waajiba wacyigelinta bulshada shacbiga bulshada bixinta cashuuraha ku waajiba iskaashiga ganacsatada iyo la tashiga maalqabeennada dalka wax keena dadaalkaas ballaaran aan xukuumad ahaan qaaday waxaa noo sahlay in sanadba sanadka ka dambeeya aanu miisaaniyadda qarankeenu kor usoo qaadanto iyadoo aanu dhaxallo khasnado maran iyo dayn culus miisaaniyaddii 2010kii aanu la wareegnay waxa ahayd $50 milyan oo dollar 2010kii sanadka 2013 miisaaniyadda dawladda dhexe waxay ahayd $125 milyan oo dollar miisaaniyadda guud ee qarankuna waxay ahayd 1 trilyan iyo dheeraad shilinka Soomaaliland oo u dhiganta $174 milyan oo dollar waxay ahayd miisaaniyaddii ugu bandeyd ee abid Soomaaliland yeelato waxaana ka mid ah waxyaabaha aanu qabanay hirgelinta cashuur ku dejinta tigidhada oo markii ugu horreysay laga hirgeliyey dhammaan gobollada dalka 12 bishii Abriil 2012 waxaa kaloo aanu saarnay guddi u gaara siyaasadda miisaaniyadda dhaqangelinteedana ilaa inta ay sidii loogu talagalay ay u furayso gudoomiye iyo mudanayaasha sharafta leh waxaan hirgelinay cashuuraha howlgabka shaqaalaha dawladda dhexe oo 1% boqolkiiba 1% ah taasoo 2012kii ay ansixiyeen golaha wakiiladu lana dhaqangeliyey bishii Abriil 2012kii iyadoo loo furay sanduuq u gaara howlgabka xukuumaddu waxay hirgelisay in la kordhiyo 5% cashuurta sigaarka iyo qaadka taasi oo lagu guulaystay in laga fuliyo dhammaan kastamada dalka waxaa la hirgeliyey cashuurta macaashka mushaharka macallimiinta iyo howlwadanada dugsiyada gaarka loo leeyahay iyadoo dalka oo dhan laga fulin doono waxaanuna mudnaan siinay sidii loo kordhin lahaa miisaaniyadda loo qoondeeyey waxbarashada hirgelinta
xaraynta kirada guryaha dawladda iyadoo laga bilaabay mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha dawladda ee qaranka mushaharka ka qaata kiradan waxaa laga jaray mushaharka ay qaataan dhammaan shaqaaluhu wasiirada iyo xildhibaanada ku jira guryo dawladeed waxaa si rasmi ah loo bilaabay bishii Juun 2012 kororka miisaanadu waxa uu keenay inuu kor u kaco kabka dawladaha hoose ay qaataan iyo cashuuraha boqolkiiba 10 iyo cashuurta boqolkiiba 10 ee dawladda hoose sanadihii 2011 ilaa 2012 kuwaas oo suurtageliyay in dawladaha hoose wax qabadkoodu kor u kaco sida ka muuqata inta badan horumarka ay ku tallaabsadeen iyadoo laga fuliyay inta badan degmooyinka iyo gobollada kuwaasoo isugu jira sariibado wadooyin qashin ururin iyo mashaariic kale oo badan oo wax laga qabanayo adeegyada asaasiga ah ee bulshada u qabtaan dawladaha hoose sanad miisaaniyadeedka 2012 marka la eego sanad miisaaniyadeedkii 2011 waxaa la kordhiyay dakhliga kabka dawladaha hoose iyo cashuurta boqolkiiba 10 ee dawladaha hoose ee dalka boqolkiiba 211 anagoo ka duulayna tilmaamaha sharcigu dhigayo in loo gudbiyo golaha wakiilada sanad walba xisaab xidhka dawladda iyadoo aan hore loogu soo gudbin golahan sanado badan arrintaas oo culays ku keentay xisaab sanadeedkii nalaga sugayay waxaanu haddana soo gudbinay xisaab sanadeedkii 2008 2009 2010 iyo 2011 arrimaha gudaha ammaanka iyo difaaca qaranka gudoomiye iyo mudanaasha sharafta iyadoo ay xukuumaddu muhiimadda koowaad siinayso ilaalinta ammaanka qaranka iyo xoojinta nabadgelyada dalka iyadoo aanu ogsoonahay muhiimadda ay qaranka u leedahay ciidamada kala duwan ee ammaanka dalkeenu kuwaas oo ah geesiyaal habeen iyo maalinba u taagan ilaalinta ammaanka iyo difaaca qaranka waxaan si weyn u xoojinay una ballaarinay dhismaha ciidanka qaranka waxaanu ka safaynay wixii loo yaqaanay caaglaha tiro gaaraysa 2500 oo madax iyadoo aan halkoodii ku buuxinay ciidamo rasmi ah oo sidoo kale waxaanu kordhinay ciidamadii militariga tiro gaaraysa 1800 askari waxaanu kobcinay tababaradooda taakuraintooda iyo qalabayntooda iyadoo aan u kordhinay gaadiidka gaashaaman ee ciidamada ku howlgalaan waxaanu qalabaynay iyo dib u habeyn ku samaynay isbitaalka gaarka ah ee ciidamada qaranka ee Hargeysa iyo Burco waxaa kaloo la dhisay dugsiga tababarka darar weyne iyadoo ay ka soo baxeen dufcado istaba jooga intii aanu hoggaanka dalka gacanta ku haynay waxaanu dhisnay ciidamada sida gaarka u tababaran ee commandosta ah kuwaas oo ku qalabaysan saanad iyo gaadiid cusub oo kaga hawlgeli karaan dhammaan xuduudaha Soomaaliland waxaan ku kalsoonahay inay kaalin xaalliye ka qaadan doonaan difaaca dalka iyo guud ahaan xoojinta ammaanka qaranka annagoo fahamsan mas'uuliyadda naga saaran sida aynu kor ugu qaadi lahayn haybadda ciidamada kala duwan waxaanu diyaarinay dhammaan darajadii ciidamada waxaanu miisaaniyadda sanadkan 2013 ku jirta gundooyinkii taliyayaasha ciidamada saraakiil xigeenka iyo inta darajada mutaysatay in ka badan 5,000 oo saraakiil iyo saraakiil ku xigeen kuwaasoo mid kasta lagu jaangoyn doono darajada uu sito darajadsiinta ciidamadu waa himilo uu qarankan muddo dheer ku taamayay waxaan ku kalsoonahay in bixinta darajadu ay kor u qaadi doonto bilgaha iyo sharafta ciidamadeena iyo karaamadeena qarannimo waxaan kaloo guulinoo ah in saraakiil tiro badan oo ka tirsan ciidamadeena kala duwan ay tababaro ku soo qaateen dalal dibadaha
gudoomiye iyo mudanayaasha sharafta leh waxaan ciidamada booliska ku xoojinay askar da'yara oo aad u tiro badan oo lagu soo xulay aqoon kana soo baxay dugsiyada sare iyo jaamacadaha dalka ciidanka booliska waxaa lagu kordhiyey ilaa 3 dufcadood oo dhammaantood soo dhammaystay dugsiyada tababarka ciidamada booliska ee Mandheera guud ahaan waxaa loo tababaray 3,900 oo askari kuwaasoo ay rag yihiin 3,217 halka ay 632 haween ka yihiin waxaan dhisnay ciidamada sida gaarka u tababaran ee ka jawaabista xaaladda degdega ah ee loo yaqaano RRU Rapid Reaction Unit si loo xoojiyo ammaanka dalka waxaa gobolada iyo degmooyinka dalka laga hirgeliyey saldhigyo iyo rugo booliis oo cusub oo tiradoodu dhan tahay 75 saldhig iyo 95 rugood oo dhammaantood la qalabeeyey waxaa dib u dhis iyo ballaarin lagu sameeyey xafiisyada iyo saldhigyada ay ka howlgalaan ciidamada booliska iyadoo aanu ku kordhinay gaadiidka u gaarka ah ciidamada booliska oo tiradoodu dhan tahay 30 gaari waxaa kaloo tababaro kala duwan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku soo qaatay saraakiil tiro badan oo booliisa waxaa noo qorshaysan inaanu sii ballaarino si ay mar walba heegan ugu noqdaan ilaalinta ammaanka qaranka waxaanu diyaarinay xeerka ciidamada booliska oo imika hor yaalla golaha wakiilada Soomaaliland iyadaanu wax ka bedelay qaab dhismeedkii ciidamada booliska waxaa kaloo socda dhammaystirka manhaj cusub oo lagu tababarayo ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo ku salaysan dastuurka qaranka ilaalinta xuquuqda aadamaha wada shaqaynta ciidamada amniga iyo bulshada waxaa la dhammaystiray dib u dhiskii xarunta ciidamada برمتك قدومي مديريش شرفت له waxaanu balaarinay ciidamada ilaalada xeebaha iyo kuwa laanta socdaalka oo kaalin weyn kaga jira ilaalinta ammaanka xeebaha iyo meelaha laga soo galo dalkeena waxaana lagu kordhiyey ciidamo tiro badan oo lagu soo xulay aqoon kuwaasoo la siiyey tababaro muhiim ah iyo iyadoo tiro ahaan iyo tay ahaanba kor loo qaaday waxaana loo qalabeeyey si dhammaystiran iyadoo la siiyey dareyskii iyo qalabkii shaqadooda ay ku gudan lahaayeen waxaa sidoo kale qalab isgaarsiineed casri ah loo dhisay ciidamada ilaalada xeebaha qalabkaas oo u sahlaya inay habeen iyo maalinba bad iyo berriba uga wada xidhiidhi karaan ciidamada ilaalada xeebuhu waxaa horumar ballaaran lagu sameeyey dhinaca nidaamka socdaalka Soomaaliland oo ahmiyad ballaaran u leh nabadgelyada iyo horumarka dalkaba waxaa la fududeeyey helidda fiisaha oo lagu heli karo on arrival iyo online labadaba waxaa kaloo dalka la keenay qalab casri ah oo lagu baaro baasaboorada foojariga ah oo imika laga hawlgeliyey gegida diyaaradaha ee muhiimka ah qalabka oo suurto gelinaya hubinta iyo kaydinta macluumaadka dadka socotada waxaa laanta socdaalka loo dhisay dhismo aad u weyn oo 3 dabaq ah oo ka kooban 40 xafiis oo qalabaysan waxaa kaloo dhismayaal qalabaysan laga sameeyey xuduudaha kala duwan ee dalka iyadoo uu socdo qorshaha baasaboorka Soomaaliland lagu casreynayo lagana dhigi doono mid la jaan qaada baasaboorada caalamiga electronic passport si aanu ku cidno hay'adaha sirdoonka oo halbowlada dowladnimada iyo ammaanka dalka waxaanu sameynay xeerkii iyo nidaamkii sharci ay ku shaqayn lahaayeen shacbiga reer Soomaaliland waxay caan ku yihiin ilaalinta nabadgelyada isla markaana ay nabadgelyadu tahay tiirka koowaad ee qaranka ku faaran
وحكومة هل أن الحوق ساري أتكيت نبتقلية الجودها هي نبت قوة النولاشة دلالك شاركة يدو أن سيوة تشيرا وقوة هرتقنو عدكستو أخاق لقليكتا أمنك يد قناشا وحانقوا أن حكومة هل إن نسيلا واللابنو ذلك يجا أن كو إلى شر إنه نبتقلية يدو أن عدنا كأقبل الدون كان أقبل الدون إن يداوعان أمانك دلك الرماء بالشدة قدوم يمضنياش شرفتنا تابقرينت وحبارشدة إيا لدقالك التالي وحساسو تهي يريت فقرق إيا سوى اللبدا وانا وحيالها أي مدات تسليميسو حكومة يدو سيرا دكتين وحانو سي شوكتيني وانو سي بلعرني وحبارشدي بلاش كاهي وحانا اللي هدقلي صندوق دقالة waxaa la qaybiyey buugaggii dugsiyada hoose dhexe oo dhammaan la gaadhsiiyey dugsiyada iyada oo la qorsheeyey in saamigu inuu noqdo labadii ardayba oo hal buug ka dhexeeyo waxaana uu ku talagalka iyagu yahay in arday kasta oo Soomaaliyeed wax ka barta inuu helo buugag ku filan si aanan arrintaa loo suurtageliyana waxaa laga shaqaysiiyey madbacad ay leedahay wasaaradda waxbarashadu oo hadda shaqaysa waxaa gobolada degmooyinka iyo tuulooyinka dalka laga dhisay 145 dugsi hoose dhexe iyo 10 dugsi sare oo dib loo cusboonaysiiyey laguna kordhiyey fasalo cusub iyadoo wasaaradda laga hirgeliyey hal studio oo warbaahinta waxbarashada ah waxaana hadda gacanta lagu hayaa kordhinta dhismaha 24 dugsi waxaan warshaqay fiican la sameynay dawladaha iyo hay'adaha waxbarashada ka caawiya mandaqadan arrintaas oo sababtay in miisaaniyadda sanadkan loo soo qoondeeyay waxbarashadu ay gaarayso 12 milyan oo euro waxaa jaamacadaha dalka ka qalijabiyey arday gaaraysa 6,600 iyo 46 arday arrintaasi waxay daliil u tahay horumarka aqooneed ee dalka inkastoo aanay shaqo la'aan badan inkastoo ay shaqo la'aan badan ay jirto haddana ma jiro cadow ka wajaaliga www.inabanews.com bulsho kobaceeda dhaqaale iyo horumar waxaa laga saadaaliyaa kororka aqoonta iyadoo arrintaa laga shidaal qaadanayo waxaa la sameeyey istiraatiijiyadda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare gudoomiye iyo mudanayaasha sharafta leh anigoo ogsoon in caafimaadku uu muhiim u yahay nolosha bani aadmiga waxa xukuumad ahaan xil weyn iska saaray sidii loo hagaajin lahaa daryeelka caafimaadka looga hortagi lahaa cudurrada kala duwan isla markaasna waxaan ku dadaalay in dadweynuhu ay dalka gudihiisa ka helaan adeegyo caafimaad oo dhammaystiran si ay uga raystaan inay dalka dibaddiisa ugu baxaan arrimo caafimaad waxay wasaaradda caafimaadku diyaarisay qorshe sanadeedka 5 sannadood ee la jaanqaadaya qorshaha horumarineed ee qaranka iyo xeerka caafimaadka qaranka oo loo soo gudbiyey golaha wakiilada Soomaaliland waxaa caasimadda Hargeysa laga bilaabay dhismaha isbitaalka guud ee Dr. Maxamed Aadan Sheekh oo noqon doona isbitaal loo dhisayo dhallaanka iyo haweenka waxaa inta badan isbitaalada gobolada iyo degmooyinka lagu sameeyay dib u habayn iyada oo qaarkoodna laga hirgeliyey mashruuca isku xidhka adeegyada caafimaadka asaasiga ah the essential package of health services www.inabanews.com gudoomiye iyo mudanayaasha sharafta leh xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ka duulaysa barnaamijka ay ballan qaaday ee kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka dalka waxay wasaaradda beeruhu tijaabisay dalagyo cusub oo laga beeri karo dalka wasaaradda beeruhu waxay ku guulaysatay inay dhammaystirto qorshe lagu tijaabinayo in barisku ka bixi karo dhulka Soomaaliland
taasi oo lagu guulaystay oo laga midho dhaliyay. dalagyada kale ee la tijaabiyey waxaa ka mid ah tufaaxa, cananiska, muringaha, buluqiyada, jiirjiirka, misirka, fasooliyada, xulbada iyo sagaaraxood. inta markaad ka sheega qaar baa la garanay baan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay tababarsiisay beeralayda dalka muddo 2 sano gudahood. waxaa tababaro la gaarsiiyey 2,000 oo beeralay ah kuwaasoo ay ka faa'iidaystay tababaro kor lagu qaadayo xirfadooda waxbeeriseed. waxaa kale oo tababaradan barbar socday kormeero iyo kulamo kala duwan oo lagu dhiirigelinayo beeralayda dalka. waxaa qalab kala duwan la gaarsiiyey beeralayda Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaa ugu muhiimsanaa 10 agab oo qiimo jaban lagaga xaraashay beeralay ka kala socda gobollada dalka oo dhan. mootaro, ceelal, tuubooyin, dibi iyo qalab kaloo la gaarsiiyey. waxaa la qaybiyey 7 makiinadood oo kuwa shiida haruurka ah, 3 makiinadood oo ah kuwa shiida bariiska ah, iyo 1 makiinad oo nooca shiida saliidda sisinta. waxaa la hirgeliyey dhisme 16 xafiis oo ka kooban oo laga fuliyey xarunta wasaaradda beeraha. dayactir lagu sameeyey dhismayaashii xarunta tababarada abuuriid qaybana lagu kordhiyey. dayactir iyo dayr lagu sameeyey xarumaha wasaaradda beeraha ee Burco iyo Gabiil. gudoomiye mudanayaasha sharafta leh, bulshada reer Soomaaliland waxay u badan tahay xoolo dhaqato. sidaa darteed xooluhu waa lafdhabarta dhaqaale ee Soomaaliland. xukuumaddu waxay qaaday ololayaal lagu daaweynayo xoolaha. waxaa la daaweeyey xoolo tiradoodu dhan tahay 500 oo kun oo neef oo adhi ah. waxay xukuumaddu shaqaale siisay 50 dhaqaatiirta xoolaha ah kuwaasoo ka soo qali jabiyey jaamacadda Burco, dugsiga xoolaha ee Sheekh iyo jaamacadda Ethiopia. waxaa la diyaariyey 2 kooxood oo ka howlgala gurmadka degdega ah ee caafimaadka xoolaha kuwaas oo u baxay 24 goobood. waxaa dhammaan sayladaha xoolaha ee caasimadaha gobollada dalka laga sameeyey hadhadh iyo raamam xoolaha laga raro lagana dejiyo biyo gelin iyo xarumo lagu daaweeyo xoolaha. waxaa laga dhisay magaalada Burco kawaan casriya oo loo sameeyey ceel riiga oo u gaara. waxaa dib u habayn iyo casriyeyn lagu sameeyey sayladda hilibka ee magaalada Boorame. waxaa kor u kacay dhoofka xoolaha taasoo abuuray shaqooyin dhaqaalaha bulshadana kor u qaaday. www.haynabanews.com waxaa laga dhibay khidmadda maxjaradu ka qaadi jireen xoolaha $2. tallaabadaas oo ka dhigtay $4 iyadoo markii hore ahaan jiray $6. dunistaasoo u kala qaybsan $1 oo ganacsatada laga dhibay, $1 oo lagu wareejiyey khasnadda dowladda dhexe ee dowladda. siyaasadda arrimaha dibadda. gudoomiye mudanayaasha sharafta leh, waxaa waala inay taabagashay qarannimada Soomaaliland iyadoo aanu dalkeenu buuxiyey dhammaan shuruudihii looga baahnaa dal madax bannaan. Soomaaliland waa dal nabdoon, xuduudihiisu ay sugan yihiin, waa dal dimuqraadi ah oo ay ka jirto sharci iyo kala dambayn, law and order. waa dal leh hay'adihii dawliga ahaa kuna wada shaqeeya nidaam dastuuriya. waxaa ka jira bulsho u hoggaansan dastuurka iyo xeerarka u yaalla. halkan inagu iskeen umaynu iman
waxaanu ku nimid doorashada aqlabiyadda codka shacabka waxaanu ku wada shaqaynaynaa dunida waxaanu ku wada shaqaynana dunida inagu ixtiraamaysa aan idinku hogaaminaya iguna xisaabtamaysa waa wada shaqayntiina oo aan dalbanayo Soomaaliland waa meel lagu ixtiraamo xuquuqul insaanka iyo xorriyatul qowlka laguna dhowro shuruucda caalamiga waxa hubaala in beesha caalamku inala macaamisho gacan qabashana koobanina inaga soo gaadho balse kamayna helin dadka iyagu wixii beesha caalamku xaq ugu lahaayeen oo ah aqoonsi buuxa iyo taageero dhaqaale caalami ah waxaanu booqanay dalal badan waanu u bandhignay qadiyadda Soomaaliland waxaanoo yimi wufuud badan iyo diblomaasiyiin maqaam sare leh oonu la yeelanay kulamo gaargaar waxaanu warshaqayn la yeelanay qaar ka mid ah shirkadaha iyo hay'adaha caamka ku ah ictiraaf raadinta arrimaha dibadda waxaanu ka samaynay xiriir fiican iyo horumar la taaban karo guud ahaan caalamka gaar ahaan wadamada jaarka ah wadamada carabta diblomaasiyiin maqaam sare leh oonu la yeelanay kulamo gaargaar waxaanu warshaqayn la yeelanay qaar ka mid ah shirkadaha iyo hay'adaha caamka ku ah ictiraaf raadinta arrimaha dibadda waxaanu ka samaynay xiriir fiican iyo horumar la taaban karo guud ahaan caalamka gaar ahaan wadamada jaarka ah wadamada carabta wadamada Yurub iyo Mareykanka oo xiriir fiican inoo dhexeeyo wada hadalay Soomaaliya u bilaabmay waxay ahaayeen arrin guul u keentay Soomaaliland waxay ku salaysnayd baaqii caalamiga ahaa ee ka soo baxay shirkii London 23 February 2012 kaasoo beesha caalamku fagaare loo dhan yahay inoogu soo jeedisay innaga iyo Soomaaliya inaynu ka wada hadalno mustaqbalkeena siyaasadeed waxaanu ku tagnay shirkaas tala qaran oo loo dhan yahay oo aad labadiina golaba saldhig u ahaydeen kuna ogolaateen nidaam sharci ah waxayna ahayd tallaabo fiican oo dhinaca wanaagsan loo qaaday guud ahaan mantaqadaba dowladda cusub ee Soomaaliya waxaan jecelahay inay inoo dhaxayso cilaaqaad fiican waxaanuna cid walba u sheegaynaa dalka Soomaaliland dowlad uma aha mana xukunto waxayna dowladnimadeedii dib ula soo noqotay sanadkii 1991 maantana waxaanu ku hawlanahay horumarinta dalkeena iyo aqoonsiga ka helno dunida dowladda Soomaaliya iyo dadkeeda waxaanu ka rajaynaynaa inay garwaaqsadaan inaynu tashanay masiirkeennii ummadeed oo aanu xaq u leenahay mana jirto cid joogi karta haddaan wax yar ka idhaahdo ictiraafka Maraykanku siiyey dowladda cusub ee Soomaaliya arrintaasi ma aha wax Soomaaliland sameeya ma aha wax cusub ee weligeed dowladda Maraykanku way ictiraafsanayd Soomaaliya balse imika waxay ogolaadeen maamulka cusub annaguna kama xumin xasilna kuma nihin wixii dadka Soomaalida u kordhaya iyo inay nabadgelyo iyo horumar gaaraan oo wax kastaan guddoomiye iyo mudanayaasha sharafta leh Soomaaliland iyo dowladda Maraykanka xiriirkii inoo dhexeeyey waxba iskama bedelin wada shaqaynteennuna waa sideedii waxaad ila dhugataan fariintan oo wasaaradda arrimaha dibaddu iga soo gaaray wakiilkeena halkaa joogay inoo soo gudbiyey
U.S. recognition of the government of Somalia will not prevent the U.S. government from engaging in Somaliland, nor prevent us from conducting our programs in Somaliland. We made sure to clarify this with the Somali government before deciding to recognize them. وفرنتي أينو صدرين الرسم قاعد يعمل صدرين دولة مريض دولة إنجليز كان وحنود حيجي سوتشرينا والتاريخية وحنقدر حيجي إسكاش هر في عن مرايي وحاسكع معي دواء قارمها الدولة كسويري إلا وش يجي إنه ود كسر مالنا لكتب في حالة دولة الحمية دواء قاسم واحد ندوق الماء كون حبوا نحدث كلا بدو وده وحنوارنا من اللي بدك دقيق ولا ليال فهيد أبوي هي الشيء أبوي مسن قرك السومال كنا علونيا وقصي اعتراف وكالة الدنيا وحن سويني تدال بدن يدبر عليك أنا لوي لما تسمع كل هذين إني قد يدنا ودنا أمدنا وحنا مرق بدونا إن وحويني إن وقف سومال ما في عنا أي نشوفنا بس ومسير بدن وإنه تعب أنت كسي بدن تدال كيننا لما لابنا كعمانا يسقبسنا سوى الشر وجوار الشقينا حكومة كليات شعبية حزبية معارضة محافظة واحد سوق غالية وحلقوا قارا قيمة بدنية واحد غالية ومدني وحي مدح بنانية قبل نبكو كو قارسة يدور لو قلتلو إن قرش الصحة لقوا بعض دونه لو ودفعوا مدح بنادو إنه يتهاي مسيركم وضد وعدك استحيلي مسؤولية كسارتها ما هو حمال يا هبين كيد ميلا قصوا قالية ما هو حكومته اسكال هذا واسه شغل له إقبدي ما هم الآن معارض مكة دايدو أما استدادو عيد كل حباء وقرن مدي وحلبا إنك أولا صارا دمانتين madaxweynahan intii aan xafiiska joogay waxaan qaaday tallaabooyin badan waxaan garaacay albaabo badan waxaan iga go'aana inaan geed dheer iyo geed gaabanba u fuulo sidii aan dalkan aqoonsiga madaxbanaani u gaarsiin lahaa si aan yoolka u xaqiijiyo diyaar ayaan u ahay inaan hor fadhiisto cid kasta tallaabo kasta oo arrintaa lagu gaari karana waxaan diyaar u ahay inaan qaado waxaan ogsoonahay in xilka koowaad aniga ay saaran yahay balse ictiraafku maaha wax aniga gacanteeda ku jira ee waxa gacan kale inagaga xidhan qarankan waxaan u soo maray halgan dheer waxaan u soo safray waqti dheer waxaan u dhaaftay dantiisa waxaan u horayaa wax kastoo suurtagala waxaan idin weydiisanayaa taageeradiinna waxaan ku kalsoonahay waayo aragnimadayda iyo aqoontayda siyaasadeed inaanan maanta xaaja iseegaynin inaanan qofna iga jeclayn inaan dalkan iyo dadkiisa ay wax noqdaan horumarinta dalka gudoomiye iyo madaxweynaha sharafta leh waxa ummadda reer Soomaaliyeed ay ka warhayaan meeshii aan wax ka soo bilownay iyo halkii uu taagnaa dalkeen markii laga eego arrimaha dhaqaalaha nabadgelyada caafimaadka waxbarashada iyo siyaasadda warbaahinta iyo arrimaha kale bulshada markaan xilka la wareegay waxaan u nimid dalkeen oo haysato masaluf dhaqaale qasad baran shaqaalihii ciidamadii oo 4 bilood mushahar qaadan iyo deymo xad dhaaf oo garbaha aanu ku qaadnay idaacadda qaranka oo hargeysa dhaafin telefishinka Soomaaliland oo kaliya laga daawado iyo arrimaha Soomaaliya oo kaliya laga daawado Soomaaliland oo kaliya laga daawado iyo arrimo badan oo dib u dhac ka muuqday aynan dhammaantood halka ku xusi karin waxaa shaki ku jirin inay xukuumadda horumarka waxaan marag madoona
dalkani ku tallaabsaday horumar la taaban karo indhaha caafimaadka qabaana ayaa arkaya bulshada ayaa maraka taariikhdana qoraysa wixii aanu qabanay waxaan wax kooban ka tilmaami doonaa waxqabadkii iyo horumarkii ay xukuumaddu ku tallaabsatay nabadgelyada waxaanu daminay colaadii muddada dheer ka taagnayd ceel bardaale waxaanu dhinnay daminay colaadii buuhodle iyo kalshaale iyadoo aanu ku guulaysanay inaanu la heshiino ururkii hubaysnaa ee SSC oo hoggaankiisii uu maanta xukuumadda ka mid yahay waxbarashada waxaanu bilaash ka dhignay dugsiyada waxbarashada taasoo suurtagelinaysa in carruurta danyarta ah iyo carruurta qoysaska ladani ay si siman waxbarashada uga qayb qaataan iyadoo aad ka dareemi karto kordhinta ardayda oo gaadhay 7,817 arday labadii sano 2011 ilaa 2012 taasoo u dhiganta boqolkiiba 43.3 waxaa la dhisay 165 iskuul shaqaalaha waxay miisaaniyaddii aanu la wareegnay 330 bilyan oo u dhiganta $50 milyan waxaanu gaarsiinay 1 trilyan Somaliland shilling oo u dhiganta 174 bilyan annagoo samaynay miisaaniyad qaran oo ka kooban dowladda dhexe $125 milyan hay-adaha madaxa bannaan 35 milyan $854 dowladaha hoose oo dhan $12 milyan waxay u ahayd dhaqaalaha dalka tallaabo weyn oo la qaaday bedelaadii lacagtii diibaanta ahayd ee buro waddooyinka waxaanu dayactirnay inta badan waddooyinka waaweyn waxaana laga sameeyey magaalooyinka waaweyn Hargeysa Burco Boorama iyo Berbera waddooyin laamiya oo aad u tiro badan kuwaasoo isku darkoodu celcelis ahaan gaadhayo 290 kilomitir waxaanu dhammaystirnay biriishkii Hargeysa ee muddada dheer laga dhul sugayay waxaa dowladda iyo bulshadu iska kaashadeen waddooyinka Dila Boorame Hargeysa Salaxley Burco Oodweyne Kalabeer Togwajaale Jidka Dawga Cali Hargeysa waxaanu dhawaan bilaabi doonaa waddada dheer ee halbowlaha isku xidha dalka ee Togdheer Cergaabo iyadoo aanu sanadkan dhagax dhigi doono waxaanuna samayn doonaa abaabul ballaaran oo bulshada kaga qayb qaadato dhismayaasha waxaa dhismayaal cusub loo sameeyey qaar badan oo wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda sida wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda qorshaynta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda beeraha wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda duristii hawada iyo qasriga madaxtooyada aan dib u habayn ku samaynay kuna darnay dhismayaal aad u badan oo cusub madaarada waxaanu dhisnay 2 madaar Hargeysa iyo Berbera iyadoo la hormariyay adeegyadoodii loona keenay qalabka lagu baadho alaabta socdaalayaasha sitaan sidoo kale waxaa gacanta lagu hayaa madaarka Burco ciidamada si loo adkeeyo difaaca qaranka iyo ammaanka dalka waxaan ciidanka ku soo kordhinay gaadiid gaashaaman iyo kan xamuulka ah oo ciidamada qaada oo ay tiradoodu dhan tahay 107 shaqaalaha waxaanu shaqaalaysiinay 5,557 totalka guud waa intii ugu badnayd awooduna noo saamaxaysay warbaahinta iyadoo ummaddu muddo badan sugaysay waxaanu keenay idaacad gaadhaysa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo TV-ga Somaliland aanu gaadhsiinay dunida oo dhan biyaha waxaa la dhammaystiray 42 ceel oo ah nooca dhaadheer iyo intii aan xilka hayay
halka dalka hore looga qoray 89 ceel 20 sannadood iga horreeyay waxaana ka bilownay gobollada iyo degmooyinka dalka mashaariic badan oo dhinaca biyaha waxaa la bilaabay mashruuca caasimadda Hargeysa lagu wada gaarsiinayo biyo ku filan oo ku baxaya dhaqaale dhan 22 milyan 300 oo kun oo dollar xeerarka aniga oo u mahadnaqaya warshaqeynta golayaasha sharci dejinta waxaan u soo gudbinay golayaasha sharci dejinta 27 xeer waxaa la saxiyay 22 xeer muddadaas aan xilkaayay gudoomiye madayaasha sharafta qorshaha xukuumadda sanadka 2013 qorshaha xukuumadda sanadka 2013 waxaa saldhig u noqon doona qodobadii ka soo baxay shirkii qiimeynta waxqabadka xukuumadda iyo qorshaynta sanadka cusub ee qasriga madaxtooyada ku qabsoomay bishii Oktoobar ee sanadkii hore ee 2012 shirkaasoo si qoto dheer ay xukuumaddu ugu la fakurtay wixii qabsoomay wax aan qabsoomin iyo waxa u baahan in la qabto iyadoo laga shidaal qaadanayo qorshaha 5 sannadood ee dalkeenu u dejinay nabadgelyada waxaan xoogga saari doonaa adkeynta nabadgelyada iyo xoojinta difaaca qaranka waxaanu sii xoojin doonaa dagaalkaanu kula jirno argagixisada iyadoo aanu kor u qaadi doono tayada hay-adaha qaranka ee nabadgelyada u xilsaaran lana xoojin doono xiriirka ka dhexeeya laamaha kala duwan ee ammaanka waxaa kaloo la sii wadi doonaa nabadaynta iyo maamul filinta gobollada Sool iyo Sanaag Bari iyadoo xoogga la saari doono sidii loo horumarin lahaa gobolladaas cadaaladda waxaanu xoogga saari doonaa horumarinta cadaaladda toosinta iyo kobcinta garsoorka qabyatirka shuruucda iyo xeerarka taasoo asaas u ah helitaanka cadaalad buuxda oo muwaadiniintu helaan tallaabooyinkaas oo ay ka dhalan doonto kalsooni buuxda oo bulshadanu ku qabto laamaha garsoorka dalkeena shaqo abuuris waxaa xoogga la saari doonaa sidii loo samayn lahaa barnaamijyo shaqo abuur oo dhammaystiran si xal loogu helo mushkilada shaqo la'aanta ee ka jirta dalkeena loona abuuro fursado shaqo oo ay ka faa'iidaystaan dhallinyaradeenna waxaana xoogga la saari doonaa kobcinta dhaqaalaha dalkeenna soo saarista khayraadkeenna soo jiidashada maalgelinta shisheeye iyadoo la samayn doono wacyigelin ballaaran oo ku wajahan la dagaalanka faqriga iyo dhiirigelinta tacabka bulshada isku filaanshaha xagga cuntada waxaanu xoogga saari doonaa sidii qarankan u noqon lahaa mid cunto ahaan isku filan waxaanu ka hor qaadi doonaa wax soo saarka beeraha kalluumaysiga iyo horumarinta xoolaha nool waxaanu xukuumaddeedu u horgeli doontaa sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa tabcashada beeraha iyo ka faa'iidaysiga khayraadka badda waxaanu samaynay qorshe sugitaanka cuntada iyo biyaha food and water security taasoo golaha wasiirada ansixiyey siyaasadda maamulka iyo kala xadaynta dhulka waxaa la dejin doonaa siyaasaddii guud ee dhulka si loo yareeyo muranada ka dhasha dhulka noola ilaalin lahaa dhulka danta guud waxaanu si mugle uga howlgeli doonaa ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga xaalka waxaanuna samayn doonaa qorshe lagu kala habaynayo dhul daaqsimeedka iyo dhul beereedka iyo dhulka seeraha siyaasadda arrimaha dibadda aqoonsi buuxa oo qarankana ka helo dunida waa bartilmaameedka koowaad ee siyaasaddeena arrimaha dibadda ku wajahan yahay waxaana loo diyaarin doonaa siyaasad qorshaysan xiriir furfuran iyo iskaashi fiican oo ku wajahan beesha caalamka sida Afrika dunida carabta Yurub Amerika urur goboleedyada IGAD
AU iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa sidoo kale waxaa la xoojin doonaa doorka qurba-joogga Soomaalida ka qaadan karo ictiraafka guddoomiye iyo madaxweynaha sharafta miisaaniyadda qaranka sidaan horey ku soo bandhignay siyaasadda miisaaniyadda ee sanadka 2013 waxaa si weyn uga muuqan doona mashaariicda adkaynta nabadgelyada iyo difaaca qaranka horumarinta cadaaladda iyo xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda annagoo garwaaqsan dib u dhaca adeega bulsho ee ka jira gobollada Sool Sanaag Bari iyo Buuhoodle waxaanu sanadkan u qorsheynay 38 mashruuc oo horumarineed oo u sii gaara gobolladaas kuwaasoo lagu horumarinayo adeegyada bulshada kor u qaadista shaqo abuurka iyo wax soo saarka kuwaasoo loo qorsheeyey inay ku baxdo lacag dhan 9 bilyan oo Somaliland shilling oo u dhiganta $1,300,000 waxaana u kala qaybsanaan doonaa sanad gobolka Sool 15 mashruuc oo ay ku baxayso $500,000 deegaanka Sanaag Bari 15 mashruuc oo ay ku baxayso qarash dhan $500,000 gobolka Buuhoodle 10 mashruuc oo ay ku baxayso $300,000 diiwaangelinta iyo doorashooyinka sida aan ku xusnay khudbadayda waxaa ina soo gudagalay waqtigii doorashada golaha wakiilada oo ku beegan dabayaaqada sanadka 2013 iyadoo waqtigii doorashadii golaha guurtiduna ku beegan yahay sanadka 2014 waqtigii doorashada madaxweynuhuna ku beegan tahay 2015 waxaa kale oo loo baahan yahay in la qabto iyana diiwaangelintii muwaadiniinta civil registration doorashooyinka ka hor iyadaan ognahay muhiimadda doorashooyinku u leeyihiin qaranka waxay muuqataa inay suurtagal ahayn in labadaas sannadood gudahood lagu qabto diiwaangelin iyo 3 doorasho hawshaasoo u muuqata inay qaranka ku tahay culays iyo dhiigbax si arrinta xal loogu helana waxaan u saari doonaa guddi qaran waxaanuna kaga gudbi doonaa talo loo wada leeyahay inagoo ka duulayna waayo-aragnimada iyo waayo-aragnimada aynu ka dhaxlay doorashooyinkii deegaanka ee dhowaan dalka ka qabsoomay waxaynu qaban doonaa in dalka laga hirgeliyo diiwaangelin dhammaystiran taasoo aanu miisaaniyadda sanadkan ugu daray $1 milyan mudanaya sidaad ka waraysaan waxaana hogaamiye ka soo horjeesta kordhinta muddaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka la gaadho dhammaadka muddaxileedkooda mana jirto wax iska ka bedelay waxaan idin ballan qaadayaa inaanan diyaar u ahayn in hal maalin la igu daro muddada xileedkayga dastuuriga soo saarista khayraadka dalka macdanta iyo tamarta guddoomiye iyo madaxweynaha sharafta leh iyadoo aanu maanta ku hayno khayraadka kala duwan ee ka buuxa dalkeenna hooyo iyo baahida weyn aynu u qabno umad ahaan inaynu khayraadka dalkeenna la soo baxno si aynu uga baxno saboolnimada una yeelanno awood dhaqaale oo wax way ka tartaa nolosha shacbigeenna iyo horumarka dalkeenna iyadoo aanu fahamsannahay in awoodda dhaqaale aynu yeelannaa ay wax badan way ka bedeli doonto miisaanka aynu ku leenahay dunida wax wayna ka tari doonto yoolka aynu higsanayno qaran ahaan waxaan dib u eegisiya wax ka bedel ku samaynay dhammaan heshiisyadii shidaalka ee laga dhaxlay xukuumaddii hore iyadoo la isku afkartay
inay shirkadaha shidaalku fuliyaan barnaamij shaqo oo dhammaystiran kaas oo loo raacayo qodobo iyo waqtiyo cayiman arrinkaas oo keenay in 20 sano kadib markii ugu horreysay dib loogu bilaabay in si mugle loo saamiyo gaasta iyo saliidda ku jirta Soomaaliland waxay xukuumaddu heshiis kula gashay shirkadaha shidaalka inay ku kharash gareeyaan 57 milyan oo saameynta saliidda iyo gaaska Soomaaliland labada sano soo socda taasoo hordhac waa shaqada iminka bilaabatay birta dhuxusha iyo maangariiska waxay dawladda heshiis la gashay 2 shirkadood oo caalami ah inay fuliyaan saameynta iyo soo saarista macdanta dalka ay ka mid tahay birta dhuxusha iyo maangariiska taasoo gacan ka geysan doonta mustaqbalka kobaca dhaqaalaha dalka iyo yareynta shaqo la'aanta dalka xeerka dawladda dhexe Central Government Act dawladda dhexe si looga hortago meesha looga soo saaro kala daadsanaan ku timaada shaqada iyo haybadda dawladnimo loogana fogaado dulfuulka xilka iyo waajibaadka isla markaana la xaqiijiyo in xilalka la isu raaciyey hab loo maamuli karo oo ku dhisan xajmigeeda waxaanu dejinaynaa oo diyaarinayna xeerka maamulka hay'adaha xukuumadda ee kala xadidaya xilalka waajibaadka awoodaha iyo shaqada hay'adaha xukuumadda kaasoo lagu maamuli doono laamaha kala duwan ee dawladda dhexe iyo isku xidhkooda wax ka beddelka iyo kaabista dastuurka waxaa labada gol u soo jeedinaya in dastuurka lagu sameeyo wax ka beddel iyo kaabis siyaasadda loo dhammaystirana waxaa idiin soo gudbin doonaa qoraal rasmiya oo xambaarsan qaabka u sahlan in dastuurka loo qabyo tiri karo aniga oo u cuskanaya arrinta qodobka dastuurka 126 iyo ka 127 sidoo kale in doorashada golaha guurtida laga dhigo xulis ee aanu doorasho ku iman si aanay meesha uga bixin tayadiisa iyo ka qayb qaadashada beelaha yaryare gabagabo guddoomiye mudanayaasha sharafta wax hortiina ka ballan qaadayaa sidaan horeba uga shaqaynay inaanu dhowro madaxbannaanida garsoorka xilka golayaasha sharci dejinta ilaalinta xuquuqda aadamaha xorriyadda qowlka iyo ilaalinta saxaafadda madaxa bannaan waxaan aaminsanahay in haweenka iyo dhalinyaradu ku yeeshaan talada dalka iyo horumarkiisa kaalin mugle oo firfircoon taasoo ahayd xeerarkii aan u soo gudbinay golahan waa arrintaa ku saabsanaa wax ka beddelka da'da ay dhalinyaradu kaga qaybgeli karto doorashada golayaasha deegaanka oo aanu ka dhignay 25 sano idinkuna aad ogolaateen waxaan idiin soo gudbiyey xeerkii kootada siinayey haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay doorashada golayaasha deegaanka oo aynan waafaqin waxa aan mar labaad idinka codsanayaa inaad dib u eegtaan inta ka horeysa doorashada golaha wakiilada si ay haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay ugu muqdaan waxaa ogsoontihiin jidka dheer ee dalkeena hooyo soo maray waxaad ogtihiin inaanu nahay qaran isku tashaday oo iyaga oo aan dunida ka helin aqoonsi caalamiya iyo kaalmo dhaqaale oo muuqata dalkooda dib u dhistay waxaan muddo 12 sannadood gudahooda dhisanay dowladnimo buuxda oo dimuqraadiya nabadgelyo kala dambayn iyo dhaqaale muuqda oo aynu abuurnay horumar dhinac kasta aynu ku tallaabsanay
وحن قاردنا إن شاء الله وقت أفوقين هرمبر بلانا وحن ربانا إلى نصر سعدان ما يستهدف بدنا برواقع أن كنا ولان دونه وحن قاردنا يورك الرئيسين إنه أقوس مقرر كهرة دولة مدن أيال ما أنت سومالنا لو وروري ماي مرحلة بدن أي سومرتي وفلي شكي سيدنا هرب وشاغنا تقصد سيدنا هرب وشاغنا تقصد هدي كارثة قد يدبت خالد السومال هو مقدس وحانتو قصونا هاي إن السيد والشيرة وقوة الجد بدونه عقبات كسوي نجاسوا أوتوماتا واحد دمان تنتهي كسيال أي تارق الحس دونتو واحد مجسندرال والضنيات وكلسوني واحد دبرادي يسمى كاكا قدبتين تروفو أي عدوات كا وقرك مصوبري مددي أن لسون لهم بدحبنا ندين مدحبنا جمهورية الصومال ومدخل تمد ربيتان كشعب الصومال ومدحبنا أي صومرين جدا ودبنا ومدحبنا عندنا ودوا فرسين ومدحنا أي أهور الدوران نفي مالبا ومدحنا أي دفاع الدوران دفاع الدولة السياسة نقلها يملكها هديك الكتاب وحنقول باقيا عالم كان بدأ يهرمك جعل إنه تحكي لي قرآن كشعب كان مدح بنادى سوماليلاند هذا غير سوماليا وحنقول باقيا إنه كفوا قاعدة وحيدا وعي كرا قضبني كسب حشرك لنا إسلام كان أي كروسلان كان كسوماليلاند مدح بنادى زوي تاي من مقدسة وأنظر قلت الجيل الكريم يوم بعمل هاي من لغش تايو وحي درس وناغا صاحب تنمو يوحي صاحب تنمو يوحي وحي القبسة الأحمر كان الله بدل الصوماليلاند يا صوماليا وقدام باين وحمسوا تشدني يا شعب قالك يا رئيس صوماليلاند إن يقعما يسقبسدان سيلا واللابان ذلك الوجيران حوشيتنا بدقليدا ورمريت الدلكا يكورتك الشفولة عدوبة iyo wax kasta oo tafaraar iyo qaysana ku keenay kara warjirka bulshadeen waxaan markale hortiina ka ballan qaadayaa inaan si laba doono dadaalka aan ugu jirno horumarinta dalkeena iyo ka madadhalinta qadiyadeena Soomaaliland ha guulaysato insha Allah